nafsiyaadka iyo shakhsiyadda qofka waxaan ku soo qaadanaynaa dadka iyagoo albaabka xiraya haddana ku laabanaya si ay u hubiyaan inuu xiran yahay dadka mobilkooda jeebka geliya kadibna istataabanaya si ay u hubiyaan inuu ku jiro mobilkii jeebkiisa uu horeba u geliyay dadka message-ka ama qoraalka ay direen marka la akhrinaya si ay u hubsanaan in qoraalku saxsan yahay dadka gurigooda marka ay ku soo laabtaan qolka dhan soo fiirinaya inta aysan salka dhulka dhigin dadka iyagoo damiyay nalalka qolalka oo dhan kadibna ku laabanaya si ay u hubiyaan inuu dansan yahay dadka kabahooda inta aysan cagta gelin iska fiirinaya inay wax ku jiraan iyo kale dadka iyagoo hurda isku diyaariyay kadibna ku soo laabanaya jikada si ay u hubiyaan in gaaska xiran yahay in leerka uu dansan yahay in albaabka xiran yahay waxyaalaha loo baahan yahay oo dhan dib u soo hubinaya haddii aad ka tirsan tahay qoladaas ogow waxba kaama khaldana mana waalid rabtid balse waxaad leedahay dabeecad loo yaqaano taxadar ku dhisan dad badanna ayaa dabcigaasi kula qabaa waxaana loo yaqaanaa dadkaasi consciousness personality